بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. hadaynu ka soo warranay badbaadinta dadyowga galbeedka degan aynu soo sheegnay waxyaabihaynu xuluusha u arkaynay oo ah inaynu midowno, oo ah inaynu guryaha ilaalino inaanay dumin, oo ah ilmaha inaynu dhowro. waxaynu kaloo tilmaamaynaa xuluushaasi ka mid ah inaynu helo santaro samayn kara islamic propagation ama dacwo faafin kara. dunida bini aadamku wuxuu ku nooliyay waa wax isweydaarsho. waxaynu u baahannahay inaynan noqon uun dad dhufays ku jira oo isdifaac ku jira oo is ilaalinayo qura. sideedaba waxaa la yidhahdaa difaaca waxaa ka mid ah weerar baa ka mid ah. waa inaynu garannaa inaynu ahayn asxaabu risaala, dad diin xambaarsanaa oo mas-uuliyaad waaweyni saaraayeen. waa inaynu fahamnaa inkastoo aynu qaxoonti noqonnay oo dhul aan dhulkeennii ahayn nimi oo dad aynan hore u aqoon u nimi, haddana in xil inaga saaran yahay inaynu dadka ka badbaadinno iyaga laftooda aakhiradooda iyo adduunkoodaba. waxay ku badbaadayaanna waxa weeyaan jawaabaha bini aadamku dunida uu ka la'yahay ee rabbi samada uga soo dejiyay inaynu gaadhsiino, oo ah wixii xallili kari lahaa mushkilaadka caalamka maanta ka jira dhammaanteed oo dhan, iyadoo agteenna yaallo xalkii dunida tan dhibtiisa xallili kari lahayd. laakiin waxa aynu u baahannahay inaynu helno ciddii mas-uuliyaddaasi haddaynan qof qof u xambaari karin, ciddii mas-uuliyaddaasi xambaari kari lahayd inaynu abuurro, meeshii lagu xambaari kari lahaana inaynu samayno. waa suurtagal dhul fog markaa timi oo dhaqan iyo diinba kaa gadisan in dadkaaga barh ka midnumo, laakiin badiil baa la hayaaye waa inaad adiguna dad kale soo gelisaa. tusaale ahaan saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee hijrootay ee tagtay ardil xabasha waxay tageen dhul diinta masiixiga ama nasaarada ah haysta, iyaga oo yar oo iyagu lafahooda la soo baxsaday iyo caqiidadii iyo diintii ay siteen oo islaamkuna aanu dowladba lahayn ayay maka ka yimaadeen. waxay u yimaadeen boqorkii najaashi ahaa. waxay yimaadeen xadaaro iyo diin ka gadisan. iyaga waa la weeraray markaan si uu dhigo oo afkaar baa loo soo bandhigay, iyana waxbay weerareen oo afkaar bay soo bandhigeen. iyaga cid baa laga dhacsaday oo maalan nin ka mid ah ayaa nasaare ka noqday, waa cubaydallaahi ibnu jaxash ninkii la odhan jiray, kiristannimadiina ku dhintay. waa nin ka mid a raggii soo hijrooday laakiin ku dhacay balligaasi masiixiga dabeetana lumay. laakiin iyana may khasaarina dhanka kale guulay geysteenoo iyana waxay gacanta ku dhigeen boqorkii waddankaba ka talinayay. iyaga haddii midh laga qaatay iyana najaashay soo qabteen, boqorkii waddanka ka talinayay gacanta ku dhigeen. waxaan uga jeedaa nolosha inaynu ka waranno uun inaynu albaabada xidhanno ama si aynu isu ilaalin lahaynoo qura maaha. waa dhacaysaa in dad badan ay naga lumaan, dad badan ay dhacdhaceen, xabsiyada dad badan ay naga jiraan, dad badan ay drag galeen, dad badan ay dhibi ka soo gaadhay. laakiin waxaynu u baahannahay badiilkana in la heli karo, oo ah inaynu inaguna dacwo faafinno oo gaadhsiinno, oo ummadaha kale aynan noqon daa'ifa munghaliqa, koox yaroo qafilan oo wax ku jira aan la garanaynin, laakiin inay noqono koox furfuran oo u furfuran inay dacwo sido, oo u furfuran inay dadka kale diinta gaadhsiiso, oo u furfuran wanaagga bini aadamku inuu inala qaybsado. bini aadamku inuu wanaagga inala qaybsan karo. taa macnaheedu waxa weeyaan laba halba waynu u baahannahay haddaynu tan rabno inaynu qabanno. halka koowaad waxa weeyaan inaynu muujinno islaamnimo wanaagsan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigu dirayey ee ahaa mucaad ibnu jabal markii yeman loo soo dirayey ee uu yidhi dardaarani sii, wuxuu nabigu kula dardaarmay ilaahay cabsidiisa inuu itaqi laha xayumaa kunta buu ku yidhi, meel kastoo aad joogto ilaahay ka cabso, cabsida ilaahay wehel ka dhigo. mar labaad ii kordhi buu yidhi oo wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha. bini aadan baa too gafafuu kaa dhici kara, haddii gaf kaa dhaco wanaag ka dabagee buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wanaagga ayaa tirtiraye
toobad istighfaar acmaal saalixa wixii wanaaga oo dhan samee isaga tirtiraye ii kordhi buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadka kula dhaqan fiican kuwa waxaan leenahay islamic propagationka aynu u baahannay haddii aynan culamo badan ama dad badan oo aqoon-yahana ama afka ku fiican wax badan sheegi kara aynan lahayn qaab loo faafiyo islaamkoo fudud baa jiro oo ah inaad bulshada kula dhaqantid dhaqan fiican akhlaaq wanaaggu waa dacwada halka ugu sarraysa qofka muslimkii inay islaamnimadu ka muuqato akhlaaq wanaaggaasi waxaa raaca baynu markaa leenahay inaynu yeelanno dad u xil saaran waxa kan oo inoo qaban kara siiba islamic centers dhul dadka muslimiinta ah ay dadka kale diinta ugu faafiyaan ugu sheegaan aqoonta islaamiga ah bandhigi kara ama ummadda u sheegi kara aynu u baahannahay marka dadku inta badan soomaaligu waxa ugu badan ee uu aqoonta uu yaqaanay aan lumini meel kasta u tago waa malcaamad waa dugsi quraan laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ka kordhino dugsi quraanku waa aqoontii ku beegnayd markaynu waddankeena joognay waddan dhan oo muslim oo dhaqanku wada muslim iyo waxaynu u baahanaynun ilmahan inaynu wax soo xifdisiino oo soo qaybo maanta waxaynu u baahannahay qaybista waxaa ka badan aynu u baahannahay fahamka in dadka waaweyn iyo dadka yaryar iyo dadka meeldhexaadka iyo cid walba in la gaadhsiin karo caqiide hagaagsan iyo diin islaamiya inaynu samayn karno taa waxaynu samayn karnaayo keliya arrimaha aynu sheegaynoo dhan waa marka aynu muujinno xilkasnimo dadaal dulqaad arrimaha aynu doonayno carqalado badan baa ka sokeeya carqaladaha ka sokeeya ama caqabaadka ama waxyaabaha aynu tilmaamnay waxa ka sokeeya waxay u baahan yihiin in laga hortago islamic center inaynu helno oo ku midowno oo dhisanno oo yeelanno oo dhaqan gelino waxa ka sokeeya kow inaynu u howlgalno waxa ka sokeeya inaynu dhaqaale u helno waxa ka sokeeya inaynu xiwaar yeelan karno wada hadal yeelan karno afkaar isweydaarsan karno waxa ka sokeeya inaynu dhabadan qaadi karno sida ogeed waxaynu u wada baahanay dhammaanteen wax badan inaynu wax isweydiinno wax badan inaynu iskaalmayno maanta shirkadka dunida ugu waaweyn waxa laga yaabaa sheerkeedu inuu $10 ka samaysan yahay laakiin waxa ku jira malaayiin min alqof 1 milyan oo qof oo $100 bixiya haddaad hesho waa 100 milyan yacni waa shirkad qaban karta wax kastaba ummadda Soomaaliyeed maanta galbeedka degani haddii laga helayo 1 milyan oo $100 bixiya waa 100 milyan 100 milyan waxay maraakiis u baahan tahay oo dhan galbeed looga baahay waa la dhisi kari lahaa laakiin 1 milyan qof ee Soomaaliyeed yaa isku xidhaya sidee loo ururin karaya see hantidooda loo raadcayn karaya waxaasoo dhammi waxay u baahan yihiin baynu leeyahay waa caqabaad u baahan inaynu ka howlgallo laakiin waxaa lagama maarmaana haddaynu rabno inaynu jirno inaynu gaadhno himilada ah inaynu santaro islaamiya oo qaban kara baahida ay leeyihiin dadka muslimiinta ee dabadda degan ee Soomaaliyeed waa inaynu ilow gaadhnaa qodobka ah inaynu heli karno santaro islaamiya oo dhisan ma aha waxaan ka hadlayaa meel lagu tukado waa santar dhan oo islaamiya oo bulshada dabadda ku nooli waxay u baahantahay ma aha jaaliyad Soomaaliyeed oo siyaasadka Soomaaliya ka qayb gashataan ka waramaya taa wali waa ku kala firirsanay laakiin taynu ku midaysanna waxay tahay waa santar islaamiya oo qaban kara baahida qofka Soomaaliyeed ee muslimka ee dabadda ku nool ilmaha wax bari kara hooyada wax bari kara aabaha wax bari kara lagu cibaadaysan karo waxbarashada caruurta samayn kara ciyaartooda samayn kara dadka waaweyn meel ay ku nustaan samayn kara xabaashooda diyaarin kara meydkooda maydhi kara arooskooda samayn kara qoyskiisa haya muranka dajin kara dadyagooda xanuunsanaya booqan kara kuwooda xabsiga ku jira gaadhi kara baahida ay qabaan dadka dabadda jooga waa santarkii fulin kari lahaa santaradani maaha santaro aan u rabo inay siyaasadaha Soomaaliya wax ka adeegaan ee waa santaro aan u rabo dadka Soomaaliyeed ee maanta dabadda jooga inaanay tirtiranku
ma aha in la waayo dadka bidhaantoodii ummadi waxay tirtirantay marka laga waayo dhaqan caqiida af wixii ay lahayd waayo dadka waxaynu kaga gedisanay midabka maaha waxaynu kaga gedisanay waxa weeyaan inaynu nahay dad Soomaalinimada la sheegaya waxa weeyaan waa inaynu af aynu ku hadalla leenahay dhaqan leenahay diin leenahay qaab nololeed leenahay intaasi hadduu waayo qofka muslimka ee Soomaaliyeed ee galbeedka degani wuxuu noqonayaa qof aan ahayn qofkii loo baahnaa xataa haddii diinta qura loo ilaaliyo wuxuu la mid noqonayaa Bakistaaniga muslimka ah يعني وقف مسلمة وفي إنجليزي كو هادلا ما في نرويجي كو هادلا ما في كلا كو هادلا لكن ما ها قف كي الصومالية دا الرادعيني قف كي الصومالية دا الرادعيني وقف دقن إيا الدين إيا أف له أو نقون كرا قف كم مدأة ومدوين الصومالية دا أو كيمي متالي كرا بري كون نقون كرا هدو سيچوغو نولان كرا وحاسو دمو حي كل عكرانون بيولينا هاي مركا إنو سماينو iskaashi iyo midnimo marka aynu sameeyno inaynu ilaalino guryaha marka aynu sameeyno inaynu ubadka ilaalino marka aynu sameeyno Islamic Centerkii waxaas oo dhan inagana inoo qaban lahaa dad iyaga aynu la noolahayn gaarsiin lahaa diinta aynu xambaarsanahay oo ah mid loogu talagalay inay bini aadamka dhamaanteed gaadho wallahu a'lam